Hello, hello, السلام عليكم. waxaway hadda waxaan duubahayaa meeshaan ayaan duubahayaa sheeko yar oo gaaban. Soomaalida qaarna inay xor ahaato Mareykanka gudihiisa ee adduunka. Qaarna aan meelahan haday marahayaan ama masaajid meel degayaan ama meel u kacayaan la kontaroolo. Soomaali annaga noo dhiga inay noo noqoto meel walba inay annaga wadaadadan iyo dadkan iyo wax anigu aan waxba ka sheekarayn oo aan wadaad ahayn. Dadaan wadaad ahayn oo wadaad isku sheegaya oo suuqa qaad ku culay in loo soo diro oo dadka loo soo diro dad kale soo dhibaateeya meel walba midda kale waxaan idin sheegayaa Soomaalidu waxa hore heesa u samaysatay heesii markii Soomaali la joogay aan la iska eeg jirin oo aad arkaysa in dadka la khaldayo waxa heesta kamid ah waxay ahayd heesta la yiraahdo Soomaali baale samaanteedii xumaanteeda haddii siliciya dhib garo Soomaali baale war heestaas horta dib ma loo raacay Soomaaliyay يعني waxa weey Soomaaliya meeshii ay joogtaba annaga le way Soomaaliya haday Mareykan joogto annaga le Soomaaliya haday Yurub joogto annaga le Soomaaliya haday joogto annaga le sida aanu doonaanu ka yeelaynaa warheeda waxaan uga dacwoonayaa dawladda Mareykanka waxaan dawladda Mareykanka codsanaynaa in la ka qabto Soomaalidan aad noo soo dirteen meel walba noo dhigteen jaajuusinta ah balada ah wax lacagta raadsanaysa maalin dhexdaas mid baa aniga oo inta magaalo halkaas booqday ilka jajaban oo igu yiri dhul bahantaana oo maxaa raday fool xun ninkaas oo si gardarra ay damcayno ii kufsado ii xoogo maxaayad dhexdeeda nin cala ugaas la yiraahdo ugaadeen leeyahay halkaas oo ninkaas oo damcayno igu afduubo oo igu yiri maxaayada ka soo bax banaankan kugula hadlahayaa wuxuuna ii sheegtay maxaayada dhexdeeda qabiil buu ii sheegtay qabiilka dhul bahantay Nuur Axmed bana waa nin fool xun oo maxaan ka jajaban video baan ka duubay videogaygii waa la frostray videogayga inta la galay asaga iyo oday kale isna lacag meesha ka aruursanayay videogaygii ayaa la frostray waa dadkaas Soomaaliya inay dadkan Soomaalida ay ka shaqeeyaan YouTube ay ka shaqeeyaan Facebook bay ka shaqeeyaan meelba dawladda Mareykanku shaqay ka siisay anagana dawladda Mareykanku shaqadii bay naga xiratay first time waa naga xiratay wax wala markaan dhulka ummadda Ilaahay iyo muslimiintii gaalada isna wax ka soo raadsadana jaajuusaantaan bay dawladda Mareykanka iyo Soomaaliya iyo nasoo daba dhigtay waxaan ka codsanayaa adduun weynaha Mareykanka inuu naga qabto dadkan oo uu irsaaqada nala ka xiray noo furo oo Ilaahay noogu soo dhiibay oo wadanka aanu nimid ay naga qabsadeen inuu waxaan ka codsanayaa dawladda Mareykanku ay nacaawiso oo ay naga qabato tuugada ay meel walba hadayna shaqana siinaynin oo ay careerkay ku cayaartay hadda anagu magacaano guriga la fadhiyeena mise waxaanu anagu waxaanu la fadhiyeena guriga mise anagu qolka yarka oo qurunka ah oo aan maartay nagaba nagu filayn baan dhex fadhiyeena mise anagu dawladda Mareykanku lacag bayna siisaa ma shaqayna siisaa ma jeeg baa noo soo dhaca waxaan ka codsanayaa dawladda Mareykanku inay naga qabato tuugadaas oo ay nacaawiso naga qaado cunaqabataynta shaqo la'aan xitaa wiilkayga jaamacadda ka qalin jibay shaqo ma haysto oo uu waayo oo maxaa raday intaas oo loona baa lagu leeyahay anigana ma shaqeeyo walaalkay oo xanuunsan hayaan hore iyo dib u sii raadiya waxaan idinka codsanayaa dulligan aadna daba dhigteen inaad naga qabataan ilaahayna ha naga qabtay inaad naga reebtaan waxa weeyaan in maxaa raday videoga ninka tuuga ahay aniga ii ugaarsanay ninkan meel walba aan maruhu joog war anigu dadka miyaan dhacay dadka waxbaan anigu weydiisanayay dadka miyaan dhacay anigu adduunka dhan baa meelaha marhay qof wax weydiisanay aduu wax siina ka qaado doonka waxa ku dhacday in aniga la idaba dhigo nin maxaan idhaahdayay tuug ah oo la idaba dhigo aniga nin tuug ah oo maxaan dhul ay qabyaaladeen dhul bahanta ii sheeganay Nuur Axmed daan ata ha Indiana kugu arkay oo hadii arkay wadanka Mareykanka anigu citizen baan American baan ahay miyana wadanka Mareykanka dhex mari karno meeshan doon aadi karin walaalayaalow adduunka Ilaahay waxa aanu dhul bahanta heeg hadaan geyn waayo oo aan oran waayo dawladda Mareykanka intaan u sheego oo oran waayo qabiilka dhul bahantaha waa tuugo waa ugaarsadayal maxaa raday dadkoodina Soomaaliya ku leeynayaan inay dhinacna raacaan weydin dadkoodii Mareykanka joogayna sidaas intaan mas'uul baanu kana intay yiraahdaan bay afduuba hayaan ay marwa meel habar ama masaajid bariisa ama walaalayaal cunto ma haysto first time waa isin waay maxaa disability ma haysto
oo dadka disableka ma filo ilmo yar aan ku qaatana wala ilmahay walaashay 9 caruur bay dhashay halna waa la iiga diiday niman tuuga ah baa ka xoogay anna ilmo yar ima joogaan marka aniga waxa aan ka codsanayaa dawladda Mareykanku inay naga reebto qabiilada dhulbahantaha ee ku qaraabta Soomaalida dhulbahantaha nafta u keenay meel walba dawladda sheeganahay qabiilka qaatuma la baxay inay naga reebto sababta dadkii ummadeena way nagu direen way noo dawladeynayaan dadkii Soomaaliya joogay ee dhulbahantaha ee laascaanood iyo buuhoodle iyo joogayna way kala xidheen oo waxay u kala xidheen ha isu galina dhexdooda xitaa yiraahdeen inay Somaliland raacaan way u diideen inay Puntland raacaan way u diideen inay Ethiopia raacaan way u diideen annagana Mareykan gudihiisa inaanu dawladda Mareykanka wax ka wada hawl galno oo aanu shaqaysano way noo diideen wayna xidhaan wayna dhibaateeyeen meel walba way noo taagan yihiin hana la ka qabto hadda walaalka iyaga iga haysta lacag bay ku qaateen dad bay u dhiibtaan hooyaday waxa lagu ballamay lagu yiri gabadhaan waa gaala iyo ku soo galin wiilkaaga iyo soo eegin gabadhaada iyo soo eegin waxaan ka codsanaynaa dadkan hana la ka qabto noogu dawladeynaya Mareykanka dhexdiisa saas ban dawladda adduunka ka codsanaya inana haddii kale annaga inta u gacan dhaafno adduunka intaan u tagno dawladaha kale Yurub ayaanu ka dacweynaynaa oo dhanina hana la ka reebo dadkan ummadan u hanjabay sadaarot iyo matasha iyo dhulbahantaha haddayna waxba noo qabanahay saasaan hadda idin sheegaya